waxaa jira hotel weyn oo loo yaqaano Ashmir kaasoo ku dhex yaala magaalada. Hotelkaasi muddo badan ayuu meeshaasi ku yaalaa. Meesha uu ku yaalana waa wada cidla oo aysan dadka agdhaweyn. Markaasi hotelka cidna ma gali jirin, cidnana ma joogin. Waxaa sababtaasi keentay waxay tahay in muddo badan ka hor hotelkaasi dadkii joogay, shaqaalihii iyo kuwii ku nasanayaba si kadis loo waayay. Waxa kaliya oo meesha laga helana ay ahayd dhiigoodii iyo sidoo kale dharkoodii. Laba wiil oo iskooley ah kuwaas oo la kala oran jiray Alex iyo Jared oo caan ku noqday inay live soo galaan kadibna markaasi ay booqdaan meelaha qadiimiga oo cidna ku nooleen ayaa waxay go'aansadeen inay Ashmir aadaan. Markaasi isbuucyo ka hor intiisa tegin ayay waxay u sheegayeen dadka ku xiran markaasi inay xagaas aadayaan oo ay markaasi ka soo laaban doonaan ayagoon wax dhibaato ay gaarin. Habeen roob da'ayay oo markaasi Jimco ahayd ayay labadooda waxay go'aansadeen inay aadaan. Markaasi waxay hor istaageen hotelka markaasi albaabada ka horeysa waxay ahaayeen kuwa qadiimi noqday oo bololay. Markaasina hawadu waxay ahayd mid aad u culus. Ayaga waxa kaliya ay wateen waxay ahayd toosh iyo sidoo kale kaamirooyin iyo boorsooyinkoodii Alex ayaa kadibna live-kii bilaabay. Markaasna wuxuu yiri haye qof walba ugu dambeyn waan joognaa hotelkii, caawa waan galaynaa, waana fiirinaynaa sheekooyinkii laga sheekeynayay inay run yihiin iyo in kale. Dadkii ku xidhnaa waxay u sheegeen inay galaan ayagoo xiise saa'id oo hayso. Markay soo galeen hotelka, hoolkii waxa uu ahaa mid cidla oo mugdi ah. Inkastoo aysan daaqado lahayn, haddana dabeyl culus ayay maqlayeen. Darbiyada waxaa ku dhignaa sawiro dad ah oo kaasoo qadiimiya. Dadka indhahoodana waxaabaad moodaa inay yihiin kuwo ebera oo mugdi ah. Alex iyo Jared oo ahaa kuwa la qabsaday meelaha cidlada ma aysan cabsanaynin. Waxa ay fuulaan jireen jaradii ayagoo meelaha eegaya. Waxay sidoo kale aad ula yaabeen meelaha qadiimiga ah kale markay aadayaan waxay maqli jireen sharkan, laakiin hadda xataa sharkanta kabahooda lama maqlo. Cod kasta waxaabaad moodaa inay hawada la qayso. Ugu dambeyn say u socdeen waxay gaareen hoolkii qolaalka hotelka. Qolaalka badanaa waxay ahaayeen kuwo markaasi xiran oo aad qadiimi u ah, laakiin hal qol ayaa waxaabaad moodaa in shalay la dhisay, qolka 246. Qolaalka kale nambaradoodu waxay ahaayeen kuwo baaba'san, laakiin qolkan nambarkiisa waxaabaad moodaa hadda in la kala reeyay. Markaas albaabkiisu xoogaa ayuu furnaa. Miyaan galnaa ayuu dhahay Jared oo markaasi dareemay cabsi. Alex ayaa qaydiyay haa dabcan taas ayay ahayd sababtayna meeshaan u nimaano, waan galaynaa qolka. Markaasi Alex ayaa albaabka furay. Gudaha ayay galeen. Qolka wuxuu ahaa mid gebigiisaba ebera. Waxa kaliya uu lahaa muraayad darbiga ku taala iyo sidoo kale kursi qolka dhexdiisa yaalo. Sidoo kale waxaabaad moodaa muraayada inay dhalaalayso inkastoo qolku hawo iyo nal midna lahayn. Muraayada ayay u dhawaadeen ayagoo markaasi ay kaamirada ku qabanayaan. Markaasi muraayada way dilaacday. Markay dilaacdayba isla markii waxaa ka soo baxay bahal aad u dheer kaasoo markaasi wejigiisa uu eber yahay, wax indho ama san ama afa aan lahayn. Kaliya wuxuu leeyahay xidido uu wejigiisa ku leeyahay. Markaasi Alex iyo Jared naxdin dartiisa ayaga gadaal ugu baxeen. Naxdintii ugu weyn waxay ahayd markii uu bahalkii dhaqaaqay. Uu dhaqaaqayba si xoog ayuu u dhaqaaqay heer ay arki waayeen meel uu ka baxay, asagoo markaasi uu labadooda ku wareeganayo laakiin aysan dareensaneen. Markaasi labadoodii aad ayay u cabsadeen ayagoo gargariiraya ayay kaamiradii hore u hayeen. Dadka markaasi ayaga live-kooda daawanayay ayagoo dhan ayaa naxsanaa. Maxaa weeye waxaas? Alla ma fiican yihiin iyo carara ayay kulligood ku hayeen, laakiin Janice ay ku cararaan maysa haynin. Bahalkii ayaa soo weeraray. Bahalkii markii uu soo weerarayay albaabka dhinacooda ayuu ka xigsaday saysa uga bixin. Markaasna Jared ayuu ku booday. Jared ayuu qabtay, gacmihii dhaadheera ayuu ku laalaabay, kadibna wuu kala jabiyay wiilkii. Alex waxa kaliya uu maqlay waxay ahayd lafaha la jajabinayo. Kadibna wuxuu sii carar oo sii jeestayba albiriqsi gudaheed bahalkii ayaa soo fuulay. Kadibna waa la kala jaray. Gebigiisaba laba qaybood ayuu u kala dhacay. Markii uu Alex dhulka ku dhacay, kaamirada ayaa dhulka sidoo kale ku dhacday, taasoo jabtay. Live-kiina xaggaas ayuu ku dhamaaday. Dadkii daawanayay ayagoo aad u walwalsan ayay waxay la socodsiiyeen dowladda.
markaasna dad ayaa loo diray. Markii ay meesha gaareenna waxba waa laga waayay aan ka ahayn wiilasha dhiigoodii iyo sidoo kale alaabtii ay wateen. Fiidiyowga Alex iyo Jared ayaa hawada isqabsaday, qof walbana wuu arkay, taasoo ay markaasi ogaanayeen hoteelka wixii laga sheegi jiray inuu run yahay oo haddana ay indhahooda ku arkeen. Inkastoo ay taasi arkeenna, qof dambe oo labadaas wiil ka dambeysay oo isku dayday inay hoteelka soo aragto maba jirinba.